Maxkamadda magaalada Garowe waxaa maanta mar kale ka furmaya dhageysiga labaad ee rag loo haystay inay kufsi iyo dil magaalada Garowe u geysteen Hodan Axmed Shanleyste oo ahayd haweeney xaamilo ah. Dhageysiga dacwadda ragga gaaraya 7 ruux waxa uu bilowday 15 bishan waxaana lagu ballamay Sabtidii toddobaadkan 21 February, balse waxaa dib loogu dhigay dalab ka yimid aabaha Hodan oo ka maqnaa magaalada Garowe. Maxkamadda ayaa u qabatay in maanta oo Arbaco ah kuna beegan 26 February 2020 in fadhiga maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal uu dhaco. Kiiska kufsiga iyo dilka ah ee loo geystay Hodan waxa uu ka dhacay magaalada Garowe 11 Abriil sanadkii tagay ee 2019 waxaana tan iyo xilligaas socday baaris lagu sameynayay 7 ruux oo loo soo qabtay inay ka dambeeyeen kufsigaas. Dhageysiga koowaad ee dacwada ka dhanka ah raggan ayaa horey u dhacay waxaana maxkamadda ay sheegtay in kiiskan oo qayb ka ah xadgudubyada ka dhaca deegaanka Puntland ay go'aan ka gaari doonto. Horey ayaa maxkamad ku taala Puntland waxa ay u dhageysatay dacwad la xiriirta kufsi iyo dil loo geystay Caaisha Ilyas oo ahayd gabar 12 jir ah oo ayna u geysteen 3 nin. Waxaa la qisaasay 2 ka mid ah halka midka kale ee soo harayna diya laga bixiyay. Inkastoo warar isku dhex waday bulshada maalmahan dambe ay sheegayeen in raggii kufsigaas iyo dilkaas geystay aanan wax qisaas loo geysan, haddana wax caddayn oo doodooda ay ku kabeen may jirin. Raggii kufsigaas geystay 2 ka mid ah sida aabaheed Caaisha uu qiray waa la toogtay oo la dilay, isaga ayaana goobjoog ka ahaa dilka, gacantiisana isaga ayaa ku qisaastay. waxaa la qisaasay 2 nin oo dambiilayaashii ahaa oo Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame iyo Cabdishakuur Maxamed Dige baa la qisaasay. maanta aad iyo aad baan anagana qisaastay waana ku faraxsanahay. Sidoo kale waxa uu sheegay in uu hubiyay xataa inay dhinteen ragga. goobjoog baan ahaa xataa markay dhinteen dhuunta iyo gacanta waa ka taabtay. Sanadkii tagay ee 2019 gobolada Soomaaliya gaar ahaan Puntland waxaa ka dhacay kufsiyo iyo falal dambiyeedyo loo geystay gabdho kala duwan, iyadoo sanadkaas uu ahaa sanadkii uu kufsiga iyo dhibaatada badnaa ee loo geystay gabdhaha Soomaaliyeed. Laakiin cadaalad aad u weyn ayaa dhacday kadib markii dil loo geystay raggii kufsaday Caaisha Ilyas. Haatana la rajeynayo kuwan xugun sugayaasha ah inay cadaaladda maraan.